waxaad rabtaa inaad gaar u noqoto cibaado waxaad rabtaa inaad 10kan habeen iyo 10kan maalmood gaar u noqotid shaqadaadu inay noqoto maxay inaad cibaadaysato maraad taagantoo tukanayso maraad quraan akhriyayso maraad wardinayso maraad nabiga ku sallayayso calayhi salaatu wasalaam inuu wardi ahaado waxaagu bilbalaayiin walmalaayiin inaad wardigaagu noqdo 10kan maalmood oo halkaad sheekayn lahayd ama war kale akhri war xataa culamadii muslimiinta hore ma taqaanaa culamada badhba ramadaanta xataa waxay joojin jireen kutubtay akhri jireen kutubtii la akhri jiray kitaabku soo ma aha wax khayr laga helayo culamada badhba kutubta joojin jirtay imaamu maalik iyo waxaa la sheegaa xataa xadiidka uu dayn jiray xadiidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam akhriskiisuu dayn jiray qur-aanku buu bixi jiray waa odhan jireen bishana waa bisha qur-aankay odhan jireen dabeetana cilmiga kale o dhan meel bay iska dhigi jireen cilmiga qur-aanku unbaa bay soo reebi jireen idan meesha raggii ragga ahaa uu kutubta cilmiga intuu ka tago uu xagga qur-aanka usii guurayey ama wardiga usii guurayey haddaad adiguna xagga sheekada usii guurto iyo internetka waa mid subxaanalay soo baxaysaa marka ictikaafkeenu uma ekaanayo ictikaafkii raggaa hore ay ictikaafi jireen haddaba nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii uu dhimanayey 20 baab uu ictikaafay baa la yidhaahdaa 20 imaamu zuhri baa laga sheegaa عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله نبي كما تجين بيرسو مدينة ويمي إنه معتكف في هاي إذا طبعا كان هبين إن هذا اعتكافته أو ورديده أو قرآن أخردد أو صلاة كتد أو هبين يمالين بمساجد كتشوكتد أيها هبا waxaa kaloo sii muhiima inaad de habeenkii baadi doontid khatarta ahaa laylat اlqadr oo uu nabigu ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam 10ka dambe in laga baadi doono oo uu haddana yidhi iltamisuuha fi اlcashri اlawaakhir waltamisuuha fi kuli watrin buu nebigu haddana fi kuli witrin war 10ka dambe ka raadiya oo haddana waxaa ka sii raadisaan buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam habeenada witirka ah habeenada witirkaa ka sii raadiya oo maxaad qaban waxaad qaban caaisha waxay tidhi oo ilaahay hadduu ila kulmiyo maxaan yeelaa xadiidka ibnu maaja iyo tirmidiba warinayaan sheekh albanani saxiixayee sheegay wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam quulii allahuma inaka cafuwun kariim tuxib اlcafwa faacfu cani waxaad tidhaahdaa allahuma inaka cafuwun tuxib اlcafwa faacfu cani ilaahayow mid wax cafiye baa tahay ee icafi dheh oo cafigana jecel ee rabbow icafi dheh idan habeenkan si aad u raadacayso baryada ilaahay badi baryada ilaahay badi waa habeenkuu nebigu leeyahy fiihi laylat khayr min أlfi shahri man xurima khayruha faqad xurim xadiidka axmed iyo nasaa-i ba warinayaan sheekh ilalbanina saxiixa ku tilmaamaya waa habeen 1000 bilood ka khayr badan sida qur-aankuba sheegay oo man xurima khayruha faqad xurim buu nebigu yihi habeenkaa ninka khayrkeeda waayaa habeenkaa khayrkiisa ninka waayaa kaasi khayrba waa khayr beele khayr beelayaasha si aanad ugu biirin habeenkan raadce bal 1000 bilood cibaadadood ha dambaysee haddii aada shaqaalo tahay oo lagu yidhaahdo 10 maalmood maalin ka mida haddaad si fiican u shaqaysid 1000 bilood mushaharkood baa lagu siinaya maxaad samayn lahayd haddaba wax weyn oo kaleba lama sheegin waan shaqaalaad ahayd miskiin oo $1,000 $500 $600 wax qaata dabeetana waxaa lagu yidhi 10kana casho maalin baa ku jirta haddaad si fiican u shaqaysid 1000 bilood mushaharkood baad qaadanaysaa 1000 bilood mushaharkood waa imisa dee waa benshan baad gelaysaa cimrigaaga inta ka hadhay waa 380 iyo dheeraad 380 sano iyo dheeraad weeyaan haddiiba ay shaqadu markaa ku xidhantay mushaharka gebigiisuba haddaad 10kaa casho maalin ka dhex raadisid haddaad si fiican u shaqayso benshanka aad qaadanayso
oo fadhiga lacagta ku imanayso bal ka warran markay janno tahay haddaba waxaa la helayaa iyo acmaasha iyo khayrka la helayaa markay tahay jannooyin ka warran sidaa ogeed ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisaa layna yidhi kow war waa habeenku qur-aanku soo degay baa la yidhi inaa anzalnaahu maxaa ku xiga fii laylaةi اlqadri laylaة اlqadri khayru min alfi shahr waa habeenkii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu u doortay hadalkiisa uu aadanaha kula hadlayo wuxuugu sheegayo inuu soo dejiyo waa habeenkaa qur-aanku uu ku sheegayo kun bilood waa dhowr iyo 80 sannadood oo 3 sano wax ka badan bilaa dheer 3 sano siduu ula mid yahay yani waxa weeyaan salaadaad habeenkan tukataa 3 sannadood salaadaad kun bilood salaadaad tukanaysa u dhigantaa wardigaad wardidaa intaasuu u dhigmaya yani camalka khayrka aad shaqaysataa camal la shaqaynayay dhowr iyo 80 sannadood buu maxay ayuu la fadliyo u dhigmaya ilaahay wuxuu ku tilmaamaya habeen barakaysan inuu yahay haddaad inuu barako raadinayso soomaalidu barakay doontaa soo maaha xabaalaha waa laga soo barakaystaa meeshan waa laga barakaystaa waa barakaa la raadinaya haddaad barako rabto inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka baa ilaahay habeen barakaysan habeenkan baa ah ee raadi waa habeen malaa'igtu soo degto jibriille uu soo dego xataa jibriil malaa'igta oo dhan baa soo degta oo qadarkan alqadar culamada mufasiriinta qaar baaba sheega inay tahay min addiiq oo cidhiidhi ay tahay waxaan filayaa caalimkii lugawiga ahaye khaliil ibnu ibraahim alfarahidi siduu sheegayo khaliil ibnu axmed alfarahidiy siduu sheegayo dayqii cidhiidhigii buu ku fasiraya wuxuu leeyahy malaa'igtaa dhulku cidhiidhi ku noqda idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaa baa soo dega waa hiya salaam baa ilaahay ku tilmaamay waa habeen nabadgeliyo shayطaan iyo inta xumaha wadoo dhan baa laga nabad galaa waa habeen maqaadiirta sanadka soo socota fiiha yufraqu kulu amrin xakiim maqaadiirta sanadka soo socda o dhan lasoo qoro malaa'igta loo soo dhiibo waa habeenuu nebi moxamed leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu nebigu yihi man saama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih wman qaama laylaة اlqadri iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih xadiidku 3 shay buu tilmaamayey qofka ramadaan sooma iimaana واxtisaaba isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo mukhlisa oo طaacada alle u ikhlaas samaynaya واxtisaaban xisaabsanaya ilaahay wacdigiisa iyo waciidkiisana rumaysan dembigiisa horaa la dhaafaa ninka ramadaanta tukada habeenadeeda isagoo iimaana واxtisaabana dembigiisa la dhaafaa habeenka kana si gaara ninka tukada habeenka laylaة اlqadriga ninka tukada dembigiisii baa la dhaafaa baa la yidhi gufira lahu ma taqadama min denbi idan ayuha alaxiba waa habeenkaasi qadarkiisu uu weyn yahay ee uu baahan yahay qofka muslimka ahi inuu xoog u raadceeyo cibaadaadka ugu badan ee 10kan la sameeyo ay culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid ah qur-aanka oo akhriskiisa la badiyo qur-aanka oo akhriskiisa iyo tadabburkiisaba la badiyo waayo ilaahay bishan buu u doortay inuu soo dejiyo nebigana calayhi الsalaaةu wasalaam jibriil baa intuu u yimaaduu bisha tan qur-aanka la akhriyi jiray oo la daraasayn jiray sanadkii u dambeeyeyna 2 goor baabuu jibriil la daraaseeyo ku dul akhriyay culammadii muslimiinta ahaydee ka dambeysayna waa ku dadaali jireen inay qur-aanka akhriskiisa badiyaan kow dee wax lagu wardiyey horta qur-aanka waxyaaba ugu fadli badan ah oo waa kii xadiidka nebigu ku tilmaamayey qur-aanka xaraf xaraf baa loo tirinayaa maxay akhriskiisa alif ba ta tha alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin saasaa lagugu tirinaya 140 ay
faatixadu ka koobantae xaraf macnaheedu waxa weeyaan 1200 oo ajaraad yeelanaysa markaad faatixada qul akhrido idan qur-aanku wax lagu wardiyo buu u fadli badan yahay aakhirana wuu shafeecaya walidalik ayaa salafkii ummadda tani waxay xoog ugu dadaali jireen inay qur-aanka in badan dhameeyaan bisha